gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf ayaa indhihiisa ku soo arkay xarunta guud ee loo dhisayo hay'addaasi oo dhismaheedu ka socdo magaalada Hargeysa. Gudoomiyuhu waxa uu qolqol u galay dhismahani shaqadu ka socoto injineerada goobtani gacanta ku haya ayaa uga warbixiyay gudoomiyaha qaabka ay shaqada u wadaan. Gudoomiyaha ayaa si weyn ula dhacay qaabka loo dhisayo dhismahani hay'addu yeelan doonto, waxaanu injineerada uga mahadnaqay qaabka hufan ee ay dhismahani gabagabada ku dhow u wadaan. Waxa maanta farxad noo ah inaanu taagannahay xaruntii guud ee hay'adda dhowrista tayada. Dhismahan ama xaruntan oo ah xaruntii guud ee ugu horeysay ee qaranku uu dhiso hay'adan ayaanu dul taagannahay oo kormeer aanu ku soo marnay. Dhismahan xarunta hay'adda tayada wuxuu socday muddo 5 bilood ah iyadoo oo khaasatan uu jiro badxirankan iyo COVID-19 haddana dhismuhu si fiican buu socday. Wuxuu ka kooban yahay dhammaan xafiisyadii hay'addu ay ku shaqayn lahayd ee qaranka ugu shaqayn lahayd howlkii shirarka muxuu ahaa iyo qaybihiisa kale kala duwan. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu kaga maaranno baahida aanu qabno xarun guud. Waxaan kula halkan ka rajaynaynaa insha Allah mini lab oo arrimaha ama shayga degdega lagu baari karo in isagana halkan nooga hirgasho hadii ay ka dhigo. Kormeerkayga wuxuu daaran yahay maadaama dhismihii dhawaad uu ku jiro inaanu halkan ka warhayno inaanu qorsheyno qaabkii aanu dhismahan insha Allah aanu ugu soo guuri lahayn iyo inaanu diyaarino insha Allah in dhawaan marka dhismuhu noo dhamaado madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo xariga nooga jaro. Batri Koosar Maxamuud Telefishinka Sahan Hargeysa.